marka adduunka dusheediina waxay ahaayeen addoomo ilaahay laakiin maalinteeba waa u taraysa addoonnimadaasi dad badan maanta waxay arkayaan salaada iyo soonka iyo sadaqada iyo zakada iyo taacada ilaahay qofku uu gudanayo manfacadeeda adduunka qofku ku arki maayo in badan laakiin maalinta la qatan yahay la qaawan yahay waa yowma alqiyaama maalinta khalqigo dhan ilaahay ay u sara joogsan doonaan yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin yowma tabyadu wujuuhun wataswadu wujuuh yowma yanduru almaru maa qadamat yadaah yowma laa tamliku nafsun linafsin shay-a yowma laa yanfacu maalun walaa banuun yowma dalika yowmu taqaabun yowma aljamci laa rayba fiihi ilaahay qur-aanka meelo badan buu kaga waramay maalinkaasi dhibaatada uu leeyahay cadcaadda halkaa inaga gubaysaa bini aadamka madaxooga la duldhigi buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam markaasaa qofka dhididka jidhkiisa ka baxay ayaa dhulka intuu galo 70 diraac dib haddana usoo bixi doona buu nebigu yihi markaasaa qof walba halkii dembigiisu ahaa buu imanayaa dhididkiisu qaar buu kuraamaha imanayaa qaar buu jilbaha imanayaa qaar buu guntiqabadka imanayaa qaar buu garbaha imanayaa qaar buu halka qowlaladu dhididkoogu imanayaa maalinka la qatan yahay la qaawan yahay ee qofku cid u gurmata uu u baahan yahay ma aha 2 cisho iyo 3 maalmood oo maalmahan adduunka hamoodin wa fii yowmin kaana miqdaaruhu 50,000 sana maalinkaasi laa hooyaa wax kuu tari walaa aabbaa wax kuu tari walaa dhaqaalo qofku lahaabaa wax u taraya walaa qabiilbaa wax u taraya walaa aqoontii uu lahaabaa wax u taraysa may waa maalinta ilaahay tabaaraka wa tacaala la wada hoos joogee la baryaayo ee xataa jamiica alambiya calayhim assalaam nebi walba intuu jilibka u dhaco uu odhan doono yaa rabbi laa as'aluka ilaa nafsii maanta naftayda mooyaane anu cid kale u hadli maayo ilaahu aniga i badbaadi buu nebi walba uu leeyahay aadam baa le calayhi salaam yaa rabbi nafsii naftayda ilaahu maanta ii badbaadi ibraahim alkhaliil calayhi salaam baa odhan doona khullada ilaahu khaliilka aan adiga dhigatay ayaan ergo ka dhiganayaa ilaahu maanta khaliilnimadaada igu badbaadi buu leeyahay maalinkaasa ilaahay xaggiisa waxaa ka iman doona ogeysiis iyo iclaan oo waa maxay iclaankaas yaa cibaadii laa khawfun calaykum alyowma walaa antum taxzanuun aladiina aamanuu biaayaatina wa kaanuu muslimiin udkhuluu ljannata antum waaswaajukum tuxbaruun yutaafu calayhim bisixaafin min dahabin waakwaabin wafiiha maa tashtahiihi alanfus wataladu lacyunu waantum fiiha khaaliduun watilka aljannatu alatii uuristumuuha bima kuntum tacmaluun yaa cibaadii ilaahay baa odhan doona addoommahaygiyow ininka maanta dushiina murug iyo cabsi midna dushiina ma saarna baa la odhan doonaa kuwa sidaa lagu odhanayana waa kuwii adduunka intay joogeen aayaadka ilaahay bay rumaysnaayeen aayaadka ilaahay bay rumaysnaayeen aayaadka maxaa loo jeedaa markaas aayaadka ilaahay waxa weyaan waa jannada waa naarta waa bacthiga waa qabriga waa nolosha dambe ee dhabta waa malaa'igta waa xayaat albarzakh aayaadka ilaahay aayaadkan kowniga adduunka aan arkaynana ilaahay baa maamula cid kale ma maamusho habeenka ilaahay baa keenay ilaahay uu karaa adduunka dhanba inuu hal habeen ka dhigo ayaa keeni kara maalin hadduu ilaahay adduunka habeen ka dhigo haddii uu maalin ka dhigana ayaa habeenkan aad ku nasanaysa kuu keeni kara wa min raxmatihi jacala lakum alleyla waannahaara litaskunuu fiihi walitabtaquu min fadlihi walacalakum tashkuruun baa ilaahay wa min raxmatihi waa naxariista rabbigiin weeyaan ayay ka ahaatay inay maalintuna inii timaado iftiin la timaado oo maalinka cadcaadu intay soo baxdo aada arsaaqada xalaasha aada u fooftaan habeenkiina uu la yimaado mugdi deedna habeenkiina aada seexataan ood nasataan baa ilaahay yidhi walacalakum tashkuruun aayaadkaa markaad aragtaanna wuxuu ilaahay leeyahay waxaad markaa mudan tihiin inaad rabbigiina ugu mahadnaqdaan war bini aadan yaroo daciif oo miskiina adigoo guriga ijaarkii lagugu leeyaho kaa casdahay oo meelaad wax ka soo qaadana la ninka maalin yar maaragtaanay culayskaa ku haystay kaa fudaydiyey ee kirada kaa sii dhiibay ayaad weligaa hadal haynood leedahay ninkaasi waa nin deeqsiya waa nin dadnimo yaqaana waa nin naxariis badan waa nin diin fiican baad odhan famaa baaluka ilaahay ku abuuray maxaad u malaynaysaa caafimaadkaad saaka la soo kacdayna kugu deeqay araggaad ku arkaysa ku siiyey hurdadaad xalay seexatay ilaaha kugu deeqay bal meel hurdada lagu iibiyey adduunka sheega waa kaasi gaaladan maanta ina wareerisay caddaan iyo madowgooga eele wax walba waan hallay wax walba waan samaynay hurdo may samayn karaan caafimaad may ku siin karaan kuma siin karaan hal habeen qofku hadduu seexan waayo u walan hal habeen
maantoo dhan buu ka sheekayn xalay ma seexan xalay ma seexan war waad seexan doontaa bal aamus malaha buun baad cabtay qaxwo badan baad cabtay baa la odhan haddana maalinimadiibu haddana hurdadii hadduu iska waayo waxaa laga yaabaa habeenka dambe hadduu seexan waayo qofka maskaxdiisu halis bay ku jirtaa maskaxdiisu halis bay ku jirtaa qofkaasi hurdaduna waa min nicam illaahi caza wajal alxamdu lilaahi aladii axyaanii bacdama amaatanii wailayhi الnushuur nabigeenu sal اlla alay slam markuu jiifka ka soo kaco ducadaasuu akhrisan jiray alxamdu lilaahi aladii axyaanii ilaaha waxaan ku mahadaya aniga isoo nooleeyey intuu idilay kadib waayo dhimashada iyo geeridu cilaaqa ka dhaxayso waa walaalo buu nebigu yihi ahlaljannuhu jannada hadday galaanna ma seexan doonaan axyaana bacdamaa amaatana xalay waan hurudnay waad dhinsanay waxa dushaada ka dhacaya kama warqabin imse meeloodna way ku dalooshay halkanaa ku dalooshay halkanaa ku dalooshay halkanaa ku dalooshay halkanaa ku dalooshay iyaa ku ilaalinayay xafada malaa'ig baa lagu soo dirayaayo xasharaadka o dhan kaa ilaalinaysa habeenkii marka aayaadkay rumaysnaayeen aayaadka ilaahay wa kaanuu muslimiin dad adduunka dusheeda intii la joogana annaga noo hogaansan bay ahaayeen buu ilaahay yihi 60 sano 70 sano qofku hadduu ilaahay daacadiisa u sabro waxa uu helayaa raaxa abadiya buu helayaa raaxa abadiya sarmadiya 70 sano 60 sano 70 sano aakhira marka la joogo intay tahay ma taqaanaa wa ama man uutiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira wayanqalibu ilaa ahlihi masruura ibnu cabaas radia allahu canhu mufasirkii qur-aanka wuxuu yihi muuminku kitaabkiisa gacanta midig markuu ka qaato waa ka ilaahay yihi xisaab yaroo fudud baa la xisaabi doonaa deedna ehelkiisa xaggiisa u gadoomi buu ilaahay yidhi ehelkaaga kuwan adduunka kula jooga hamoodi runtii maaha kuwan ehelkii runta ah awlaadan adduunka aad ku haysato waa ikhtibaar baa lagu siiyey xaaskaaga waa lagugu ikhtibaarayaa nolosha adduunka waa lagugu ikhtibaarayaa ehelkaaga dhabtu baa layihi qofka muuminka ehelkiisu kitaabkiisa markuu gacanta midig ka qaato oo xagga jannada uu dhaqaaqo irida jannada u taagan yihiin buu yihi ibnu cabaas markaasuu sidaa u eegaya xawraadiisii xawraad cayntii baa ka hortimida ma ogtahay daymashada oo keliya ayaa ka qaadan doonta 70 sannadood kuwa adduunka 10 daqiiqa ma eegi karta isnaantaada haddaad tirahda nabad qurux badan tahay caawa ku daawada balsaa u joogso war hay cawriin bay ku odhan balaaga kugu dhacdee 70 sano noloshii adduunka soo maha waxaad kusoo dhamaysatay soo maha 70 sanaad adduunyada joogtay waxay u dhigantaa hal xural cayn oo wejigayga daawanaysa u dhigantaa yucaaniquhu wa yucaaniquha walmucaanaqatu qadru 40 sana buri ibnu cabaas 70 sano uu daawanayey 40 sanana saas u haysan baa la yidhi waa imisa 110 sano maxaad soo jirtay adduunka markaa ehelkeenu way naga dambeeyaan وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا محل إنه كان في أهله مسرورا أهل كي أدويدنا والله شيء قال صعب قارنا كتاب هو حاجة قداشة دم الله جسوا سين دونا بإلهي هذا العلوش هل كان أنت قدح بعضه قعنت أي كتاب حاجة دم كان قادان يا قعنت بدحولي بنا وعلامة الشقاوة إنه خساري وامتحان كي كل عيب عدين يسا إلى جهنم والعياذ بالله ومحا كاسدا كتاب حق دم لوغا سيي waxa looga siiyay adduunyada intuu joogay buu ehelkiisa dhexdooda ku farxsanaa bas iska ciyaarayay iska tumanayay iyo ku ka shaqeynayay iyo ka umbu noloshooda ka fikirayay aakhira iyo warkeeda baabka kuma bajarinba ciyaalkan dhoofinayna ciyaalkan u shaqeynayna ciyaalkan u fikiraya mustaqbalkooga dhisaya meel tacliin la raadsanaya dhulkan dhakhtarra male dhulkaaba dhakhtarra le amniga afrika la iskuma hadlayn karo waan qaadaya waan sii wada uu soo wada uu sii wada noloshiisii oo dhan wuxuu ku dhamaystay kuwaas sidoo kale dhinac ugu wadwaday diinna ma barin xataa yaa rayt hadduu ilaahay bari lahaayo nebigooga bari lahaa sal alla alay wasalam oo qur-aanka bari lahaayo dhaqanka wanaagsan bari lahaa lakaana axsan fiicnayda inbaa beri jamaacaddu ay ku yidhahdeen alaa yar fadhiiso masaajidka xalaqada dhegeyso wuxuu yihi bilaa meherad ma ihi bu yihi anigu sidiina bilaa meherad ma ihi bu yihi mashquul baan ahay ciyaalkaygana waan tarbiyadeeyaa raalli baad iga ahaanaysaan haye waan kaa nahay raalli jaamacaadka dacwaddana waxaa lagu yaqaanaa sabirka moogta haalib u ah iska sabra
saddex sano kadib bay haddana la hadleen wuxuu warni waa soo dhadhowahay imika buuri waa soo dhadhowahayo caruurtii baan dibadda jaamacadahan u wada dirayaayo markaan iyaka iska diro markaasaan jaamacaadka aan masjidkan la fadhiisan buu yidhi uu diray haye imika ciyaalkii ma dirtay haa waan diree laakiin waqti aan ila fadhiistay nima hayo iyakan habeenkiina khadka ayaan kala hadlayo ka waaniyaa buu yidhi oo iyakan saacado badan ku bixiyaa buu yidhi iyakoo dibadahay kala jooga 5 sano ninkaa jaamacaddii kala maqnaaya ninkii cawlan oo madoobaaday oo fool xumaaday ayay maalin masjidka ku arkeen bal noo waran wuxuu waxba igu dhacay buu yidhi maxaa kugu dhacay saddexdii ciyaal dibadaha u kala daray haa midna uu waashay buu yidhi haye midna maskaxdiisii oo isku darsantay siduu daroogu isticmaalayay ilaa inuu wax baranaya aanu haystay mukhadaraad siduu u isticmaalayay isagoo nooc kale ayaa la ii keenay oo dhaqan celin oo meel hargeysa la yidhaah baan ku xiriyay buu cilaaj kii kalena rajama bala khamri buu cabaaba la iga yidhi buu yidhi oo ciyaalku mustaqbalkooga dhisaya markaa mustaqbalka ubadka diinta lagu dhisaa ilaahay baa la baraa oo nebigooda la baraa sal alla alay slam oo qur-aanka la baraa oo qofka dadnimadiisa waxaa soo saaraysa waa diinta islaamka hadduu qofku diin baranayn uu diin ku dhaqmayn oo diin lagu tarbiyadaynayn waxaa la barayo o dhan waa habaan manhuurayo ogow culumta maadiga adduunkana qofku uu ka heli karaa laga yaabo inuu faa'iido ka helo inuu ka faa'iidayna waa suuragal laakiin cilm diin qofku hadduu barto maba khasaarayaba qofkaasi adduunkan iyo aakhiraba si walba waa macaash marka nina adduunkan intuu joogay buu ehelkiisa ku dhex faraxsanaa ayagoo ku iloobay aakhiradiisii mustaqbalkooga adduunyada siduu dhista u lahaabuu iyuu aakhiradoodiina ku halmaamuu ku iloobay nina adduunyadan intii la joogay buu ehelkiisii isaguba xagga ilaahay u jeesteen deedna muuminku hadduu janno galana oo ehelkiisuna ay jannada la galaan hadduu isagu reerkiisa ka darajo sarreeyo acmaasha uu qabanayay iyo dadaalka khayrka uu reerkiisa ku bixinayay ayaa ilaahay intuu ku karaameeyo ehelkiisana intoo loo soo qaado darajada jannada halka uu kaga jiro ayaa loo keenaa qur-aanka ilaahay ku sheegay marka noloshan adduunyada ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu noo keenay inaan isaga ku raali gelino bas aakhiraduna waa meesha qofka muuminka lagu raali gelinayo jannadu waa meesha adiga lagugu raali gelinayo wa fiiha ma tashtahihi al-anfus baa ilaahay yidhi waxa naftiinu ay doonto oo dhan baa ilaahay ayuu ku sheegay jannada inay yaalaan marka asbaabta jannada lagu galayo kow waxaa ka maaragtaanay bacda raxmat illaahi jala wacala waa iimaanka oo markay muuminiintu banka qiyaame ay soo gudbaan ay soo dhaafaan ee kitaabkoogii qaar gacanta midig laga siiyo qaarna jannada bilaa xisaab ay ku galaan ayaa ilaahay odhan doonaa jannadii waa taasa raxmadayda ku gala laakiin darajaadka jannadu ay leedahay hadda acmaashiina ku qaybtimaa la odhan doonaa markaasaa qofka loo baadhayaa salaadiisii intay ahayd sadaqadu la baxay intay ahayd qur-aanka intee buu ka xafidsanaa adkaarta intee buu samayn jiray yuqaalu lisaaxibi alqur'aani iqra wartaqi waratil kama kunta turatilu fi dunya faina manzilataka cinda aakhiri aayatin taqra'uha saaxib alqur'aan xaafid alqur'aan ninkii qur-aanka xifdiyey mujawidka ahaa ee qur-aanka laabtiisa ilaahay uu ku ilaaliyo qalbigiisa ilaahay ku taabacay ayaa lagu odhan doonaa qur-aanka akhriskiisa bilaab aayadna u kala dhigdhigo tartiili sidii adduunyada markaad joogtay qur-aanka aad u kala dhigdhigaysay aayadda ugu dambaysa meesha aad ku joojisid ayaa jannadana mansiladaadu noqon doontaa aayadda ugu dambaysa halkaad ku joojisid baad jannada ka geli doontaa khalaas lidalika xaafid alqur'aanka baa la yidhi baynahu wa bayna الnabiyiina darajat waaxida darajat nubuwa xaafid alqur'aan ilmaha qur-aanka xifidsan ee qur-aanka xambaarsan isaga iyo nebiga darajad keliya unbaa udhaxaysa waa darajadee darajat nubuwa unbaa udhaxaysa nebinimada unbaa udhaxaysa marka jannadii markii dadku ay naxariista ilaahay ku galaan allah inagu geliya amiin dhahada kadibna waxaa la odhan doonaa markaas acmaashiina jannada ku qaybtama marka asbaabta jannada lagu galayo acmaasha jannada lagu galayo salaada subax baa ka mid ah man salla albardayni dakhala aljanna buu nebigu yuri sal alla alay slam qofka labada qaqabuu tukada jannadu galay
salaaduna waa meesha qofka muuminku ilaahay uu kaga xidhmo weeyaan. muslim baan ahay ma tukado waxay ka dhigan tahay muslim waan ahay waan sheegtaa laakiin ilaahay xidhiidh lama lihi bay ka dhigan tahay. ra'su lamri alislaam wa camuuduhu alsalaa. diintan islaamka madaxeedu buu nabigu yidhi waxa weeyaan waa islaamnimada. islaamnimadu waa maxay? waa hogaansan, inaad ilaahay u hogaansanaato. masaajidka dhexdiisa keliya maaha, meeshaad doontaba joog. waxaa la doonayaa ilaahay inaad meel kastood joogto aad amarka ilaahay aad ugu hogaansanaatid. wa camuuduhu baa nabigu yihi alsalaa. diinta islaamka udubkeega haya ee xajinayana waa salaada buu nabigu yihi. salaadu markaa waxa weeyaan zamankii nabigeena calayhi salaatu wasalaam qofka muslimka ee jadiidka markuu soo islaamo salaadana waa la baraayey, sida ilaahay loo baryana waa la baraayey. salaada waa la baraayeyo sidaa ilaahay ugu xidhan weeyaan. baryada ilaahayna waa la baryayeyo makhluuq sidaadaa ha baryin oo ha weydiisanin waxbe ilaahay bari. haddaad ilaahay bareed baahidaada ilaahay ba adiga kuu daboolaye.